السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن داوديال maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qisadii ciyaaryahankii Pele ee Brazil u dheeli jiray. Muuqaalku wuxuu ku bilaabanayaa Pele oo 9 sano jir ah kaasi oo ka baxaynayo isla markaasna kubadda ku ciyaarayo xaafadaha iyo luuqyada. Kubadda waxay ka samaystaan dharka ay dariska ka soo xadaan kadibna xarig ay ku xiraan ayagoo dabeedna ku dheelayo. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Pele oo hooyadiis canaananayso maadaama uu isoo wasaqeeyay. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa koox rag ah oo idaacadda ka dhageysanayo finaalka kubadda cagta sanaduna waa 1950 wuxuuna u dhexeeyaa Brazil iyo Uruguay halka Pele xagga sare uu ka dhageysanayo ciyaarta. laakiin nasiib xumo Brazil waa la karaayay taasoo dhacday in Pele abiis uu ooyo. Pele wuxuu abiis ka balan qaaday inuu World Cup-ka u keeni doono Brazil. maalintii xigtay Pele hooyadiis waxay u qaaday mees ay ka shaqeyso oo hotel ah kadibna mees waxaa soo galay inama taajiriin ah waxayna bilaabeen inay ka wada sheekaystaan kubadda cagta. Pele oo ah mid kubadda jecel ayaa durbadiiba soo galay wada sheekaysigii. Pele hooyadiis ayaa soo laabatay waxayna ku cudur daaratay cunugeeda inkastoo uusan wax qalad ah samayn. ka hor intuusan bixin Pele wuxuu hore u qaatay warqad kubadda cagta lagu ciyaarayo. Pele iyo saaxiibadiis waxay bilaabeen inay kubadda cagta iska diiwaangeliyaan. ugu dambeyntii si ay u dheelayeen waxay gaareen finaalka halkaasi oo ay ka hor yimaadeen ciyaalkii taajiriinta ahaayeen ee Pele foodeynayeen. inamadan way ka da'weyn yihiin Pele iyo saaxiibadiis sidoo kalena waxay wataan kabo wanaagsan waxayna ku caayeen Pele iyo saaxiibadiis inaysan kabo wadan. Pele iyo saaxiibadiis waxay go'aansadeen inay kaba helaan wax walba ha ku qaadatee. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Pele iyo saaxiibadiis oo xadayaan juwaan galay ah si ay u gadaan kabana u soo iibsadaan. ayagoo xadayaan ayaa waa la ogaaday waana la soo ceelsaday laakiin si wanaag Pele iyo saaxiibadiis waa ay ka badbaadeen. suuqa ayay gaareen halkaasi oo ay ku iibiyeen galeydii. muuqaalka waxaynu arkaynaa inamadii taajiriinta ahaa oo Pele iyo saaxiibadiis kor yimaadeen ayagoo bilaabeen inay caayaan. Pele waa uu ka xanaaqay dharbax ayuu ku dhuftay halkaasi oo dagaal ka qarxay. maalintii finaalka ayaa la gaaray. Pele iyo asxaabtiisa waxay ku guuleysteen in ay kaba guud helaan laakiin waa ay ka weynaayeen laakiin saasii tahayba waa ay xirteen taasi oo hoos u dhigayso xirfadooda. kooxdii ka soo horjeeday ayadoo tan ka faa'iideysanayo ayaa waxay ka dhaliyeen goolal badan halkaasi oo 6 eber ay ciyaarta gaarsiiyeen. Pele ayaa wuxuu go'aansaday inuu iska siibo kabaha buudka waxayna go'aansadeen inay u dheelaan qaab xaafadeedka. durbadiiba Pele ayaa wuxuu soo bixiyay xirfad cajiib ah waxaana ku guuleystay inuu kubadda shabaqa geliyo. durbadiiba saaxiibadiis ayaa sidoo kale kabaha iska siibeen waxayna bilaabeen in ay dheelaan qaab xaafadeedka. ugu dambeyntiina waxaa u suurtagashay in ay 5 gool soo bareejeeyaan halkaas oo ciyaartii ku soo gabagabowday 6-5. Pele iyo saaxiibadiisna waa ay guul dareysteen laakiin saasii tahay dadkii shacabka ahaa ayaa soo dhaweeyay xirfadii la yaabka lahayd ay Pele iyo saaxiibadiisa soo bandhigeen. markii ay ciyaartii dhamaatay waxaa arkay raggii ay ka soo xadeen galeydii waxayna bilaabeen inay soo ceyrsadaan taasoo keentay in inimadii ay ku cararaan dhankaas iyo jikhda. mid ka mid ah asxaabta Pele ayaa wuxuu ku dhacay Pele ayaa u soo laabtay garabka ayuu qabtay waxa uuna geliyay meel god aheed halkaasi oo islahaayeen waa ku nabadgelaysaan laakiin nasiib xumo roob ayaa yimid godkiina waa uu ku soo dumay halkaasi uu saaxiibkiisa ku geeriyooday. sanado kadib muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa Pele oo da ahaan 15 jir gaaray. hooyadiis ayaa waxay la cajabtay xirfadda inankeeda waxayna go'aansatay inay wacdo nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Walmart si uu u eego marka uu kubadda dheelayo. marka uu Pele guriga soo laabtay Walmart ayaa wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu maalgeliyo. muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa Pele oo u ciyaarayo tiim caalami ah oo lagu magacaabo Santos. Pele ayaa waxaa ku adkaatay inuu la qabsado kubad magaaleedka maadaama uu la qabsaday kubad xaafadeedka. Pele niyajab ayaa la soo gudboonaaday wuxuuna go'aansaday inuu xaafadiis iskaga laabto isagoo meesha tareenka sugayo waxaa u yimid Walmart waxa uuna ku dhiirigeliyay inuusan xaafadda ku laaban taa beddelkeeda uu ku dadaalo inuu xirfadiisa horumariyo. Pele waa uga aqbalay dib ayuu u laabtayna. muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Pele oo kubadda dheelayo. Pele ayaa wuxuu soo xasuustay qaabkii ay xaafadeedku ugu dheeli jireen wuxuuna bilaabay inuu u jaro dadkii ka soo horjeeday isla markaana uu kubaddii ku guuleystay inuu shabaqa geliyo. koodkii ayaa soo dhaweeyay wuxuuna ka codsaday Pele inuu mar kale sameeyo xirfadaasi oo kale. Pele ayaa amarkii qaatay durbadiiba gool kale ayuu dhaliyay. Pele ayaa wuxuu magac ku yeeshtay tiimkii asagoo xushmad ku dhex yeeshtay magaaladii uu joogay halkaas oo loo dhalacsiiyey tiimka barowga ah wuxuuna bilaabay inuu kubadda la dheelo tiimamka waddanka ka dhisan oo dhan. wuxuu booqasho keys ah ku yimid gurigiisa halkaasi uu haydadii u keenay aabihiis iyo hooyadiis wuxuuna aabihiisa si khaas ugu keenay raadiyo uu ku dhageysto cayaaraha waxayna bilaabeen inay dhageystaan
shaxda cayaartooyda dheelayso walkaabka Brazil 1958 Pele wax rajo ah ma qabo in la xulan doono maadaama uu yahay nin 17 sano jir ah saasi taayba waxay bilaabeen inay dhageystaan waxaana yaab noqotay markay ogaadeen in Pele loo xushay inuu dheelo walkaabka Pele marka uu gaaray garoon wariyaasha waxay bilaabeen inay ku maadeystaan qaab xafadeedka ay u dheelaan kooxda Brazil arrintaas kadib coach ayaa wuxuu bilaabay inuu u yeero Pele wuxuuna ugu digay inuu u ciyaaro qaab xafadeedka beddelkeedana laga rabo inuu u dheelo qaabka caalami ah maalintii xigtay Pele ayaa wuxuu isku dayay inuu kubadda u dheelo qaabka caalamiga laakiin waa ay ku adkaatay wuxuuna bilaabay inuu u dheelo qaab xafadeedka laakiin waa ursid baday taasoo keentay in jilibkiisa uu dhaawac ka soo gaaro dhakhtarka tiimka ayaa wuxuu baaray wuxuuna ogaaday in dhaawacan uu ka fadhiisanayo walkaabka habeenkii marka la gaaray Pele ayaa wuxuu dhacdadii u sheegay hooyadiis niyad ayay ku noqotay waxayna ku dhiirigelisay inuu ku kalsoonaado qaab xafadeedka uu kubadda u dheelo ciyaarihii ayaa bilowdeen Brazilna waxay ku guuleysatay ciyaarihii ugu horeeyay dhaawacyo badan ayaa soo gaareen dadkii dheelayay kubadda waxaana dhacday in Pele lagu qasbo inuu kubadda dheelo Pele ayaa wuxuu bilaabay inuu samaysto marmarsiyooyin badan laakiin coachkii ayaa ka diiday Pele garoonka ayuu galay nasiib wanaag wuxuu ku guuleystay ciyaartii semifinalkii waxay la ciyaarayeen France half-time-kii marka la gaaray France waxay lahayd hal gool waqtigii nasiinada marka la gaaray Pele ayaa waxaa soo wajahay niyad wuxuuna aaday dhankaas iyo saaxiibkiisa wuxuuna ka codsaday inuu bedelo uuna booskiisa ciyaaro laakiin saaxiibkiisa ayaa u sheegay in uusan diyaar u ahayn inuu kubadda dheelo waxa uuna sidoo kale u sheegay Pele inuu kubadda u ciyaaro qaab xafadeedkii marka garoonka la galay Pele ayaa wuxuu bilaabay inuu u dheelo qaab xafadeedkii waxa uuna bilaabay Pele inuu u jarjaro dadkii ka soo horjeeday kubaddana uu dhex mariyo lugahooda dhexdooda waxaana u soo gashay Pele inuu kubadda dhex geliyo shabaqa Pelena wuxuu dhaliyay 2 gool kale taas oo keentay in tiimka Brazil ay u gudbaan finaalka halkaas oo ay la dheelayaan Sweden coachkii ayaa wuxuu xaadiriyay tiimkii waxa uuna u sheegay inay kubadda u dheelaan qaab xafadeedkii markii shirka la galayay coachka waddanka Sweden ayaa waxa uu bilaabay inuu ku jeesjeeso tiimka Brazil coachka sidoo kale wuxuu garwaaqsaday in farsamadii uu bar jiray kooxdiisa ay ahayd mid qaldan qaabka kaliya ay ku guuleysan karaan uu yahay inay u dheelaan qaab xafadeedka waxa uuna u sheegay inay u dheelaan qaab xafadeedka adduunkana ay tusiyaan in qaab xafadeedka uu yahay mid jiro finaalka marka la gaaray firimbiga marka la yeeriyay kadib tiimka Sweden waxa uu soo gashay 4 daqiiqo kadib inay kubadda shabaqa geliyaan taageerayaasha Brazil waxaa soo wajahay niyad jab waxaana dhacday laakiin tiimkii Brazil waxay muujiyeen dadaal waxaana u soo gashay inay hal gool keenaan wax yar kadib waxaa suurta gashay in tiimkii Brazil ahaa ay goolal badan ka dhaliyaan Sweden ugu dambeyntii waxaa la yeeriyay firimbiga dhamaadka ciyaarta Brazilna saas ayay ku guuleysatay Brazil ayaa waxay ku guuleysatay markii ugu horeysay taariikhda World Cup tiimkiina waxay bilaabeen in ay Pele kor u qaadaan ayagoo ku dhawaaqayo magaciisa waxaana dhacday in Pele loo magacaabo halyey qaran muuqaalkana meeshaas ayuu ku egyahay daawada